بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waa salaamaya waxaan ugu hambaliyaynayaa hambaliyada ciidda isbuuca xurriyadda ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ay dabaaldegayso waxaan rabaa anigana inaan farxadooda farxad ku daro oo aan u sheego inaan caafimaad qabo alxamdulillaah baryahan waatay hore loo sheegay inaan xanuunsanahay waa run cudurkaas covid-19 laga helay ugu dambeyn hadda hadii la test gareeyay laba jeer la igu celiyay laba test laga qaaday inaan caafimaad qabo ayaa markii dambe labadiiba negative ay noqdeen waa caafimaad qabtaa leeyahay alxamdulillaah ilaahay yaa mahadaas iska leh waxa kale oo rabaa inaan mahad u celiyo dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ducadoodii iyo baarakayntoodii iyo maxaan ku iraahdaa sida ay maxaan ku iraahdaa igu soo duceeyeen ilaahayna ducadoodii wuu ii aqbalay waxaan dadka Soomaaliyeed ayagana inaan u mahad celiyo waan iraahdo waa mahadsantihiin ducadiina waa ku mahadsantihiin waxaan rabaa ummadda meel kasta ay joogto inaan u sheego aad iyo aad ayaan u caafimaad qabaa alxamdulillaah maalmaha soo socdana xafiiskaygan si regular ah caadi aan u tagi doonaa shaqadayda caadiga aan wada doonaa inkastoo baryahanba intii aan guriga ku jiray shaqadana aan waday dadka Soomaaliyeed waxa u sheegaya wax badan ilaahay mahdi waa ilaahay ayaa sabab waa inaan aad iyo aad u caafimaad ma dhibtoon xanuun badan iyo culays badanna maan arag intii xataa aan waa is ilaalinay waxaan ilaalinayay nidaamka muxuu ahay iyo xeerarka u yaalo ilaalinta cudurkan dhibka badan laakiin dadka Soomaaliyeed waxa u sheegaya tallaalku waxbuu taraa aniga saddexdii tallaalba waan qabay labadii caadiga ahayd iyo kii boosterka ahay marka waxaan dareemayaa qadarta rabbi iyo ducada dadka iyo ilaahay naxariistiisa ka sukow tallaalku inuu wax badan taray waa dareemayaa dadka Soomaaliyeed inay istallaalaan ay cudurkan iska tallaalaan meel kasta ay joogaan waa ku dhiirigelinayaa tallaalka sidii hore loogu sheegay cudurka kaama hor istaagayo laakiin adoo tallaalan hadduu kugu dhaco uu ka dhib yar yahay adoon tallaalin markuu kugu dhaca nala dhihi jiray laakiin hadda annagaaba soo aragnay xanuun badan iyo qandho badan iyo maan dareemin waxyaabo yaryar waa dareemay oo maxaan ku raacay caadi ahayn laakiin aad uma dareen marka taas waa midaas meesha uga haraya mar kale ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan leeyahay hambalyo usbuuca xurriyadda maalmaha dhiman xurriyaddana ilaahay idankiis waa wada dabaaldegi doonaa dabaaldega xurriyadda iyo inaan isku darno ayaana laga rabaa gargaarka muxuu ahay ummadda Soomaaliyeed ee abaaruhu ay dhibaateeyeen aan u gargaarayno oo aan u gurmanayno inaan aad iyo aad ayadana aanan la iloobin farxadda waa in lagu daraa deeqsinimada ummadda ay leedahay walaalayaal aan u gargaarno walaalaheena Soomaaliyeed ee duruufaha gaarka ah ee ay cimarada isbedeshay abaaraha iyo qadarta rabbi ku yimiday ay haystaan aan u duceyno oo duco ugu darno ayagana in ilaahay roob dalaalo qabo caafimaad qabo oo barwaaqo watahay ilaahay uu nasiiyo dhamaanteen meel kasto oo Soomaali ay ku nooshahay iyo inaan jaabadaheena wax yarka ay ku jiro aan wax uga quuro hadii la yiraahdo waan dabaaldegaynaa farxadda iyo xuska taariikhda waan muujinaynaa laakiin haddana intii la qarashkooda la yareyn karo waan yareynaynaa qarashaadkii budgetka dawladnimada waxa ugu jiro maalmahan loogu talagalay waa tan hore go'aanka u gaarnay oo aan u leexinay muxuu ahaay dadka Soomaaliyeed culayska haysta si looga yareeyo ilaahay idinkiis taasaan ka wada shaqaynaynaa dhib kale ma jiro alxamdulillaah mar kale ummadda Soomaaliyeed waa mahadsan tahay